Magaalada Buuhoodle waxaa si weyn oo meeqaamkeedu sarreeya loogu soo dhoweeyay wariye samafale Cabdimaalig Sheekh Muuse Coldoon oo ka soo kici timay magaalada Burco. Soo dhoweynta wariyaha ayaa waxaa ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada, iyagoo kaga hortagay deegaanka Sool joogto oo ilaa 27 kiiloomitir u jirta magaalada Buuhoodle. Waxaana ugu horreyntii halkan ka hadlay Cabdimaalig oo uga mahad celiyay bulshada reer Buuhoodle soo dhoweynta. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير بوهودله إلهي خير يدكوا بالمريو رقي الدمر قيبهنا كلا دوان سيدا ديرنا نوصل دويسين قبل نمدو كله هنتهاي ولا تنمدو كله هنتهاي وأنا ديكم هذا علينا جزاكم الله خير. وحنو نمي deegaan kayagii baanu nimi meel nagu qariiba baanu iman waxaan u nimi dadkayagii baanu nimi inaanu la kulanno la hadallo sida aad maqlayseen anigu waxaan ahay nin reer Buuhoodle deegaanka Buuhoodle waa meeshaan ku dhashay yaraan baa igu dambeysay anigoo 7 jir igu dambeysay maanta anigoo daadaas ayaan nimi waxa iga degan ehelkayga ayaa iga degan oo aad laydinka warramay oo in badan oo idin kamid ah aad ka warhaysaan inta kale aan ogeyn oo sheegaynaa dadkayga meesha jooga guud ahaanna waxa weeye maadaama aan anigu runtii magaaladan aan ku dhashay waxa weeye way iga duwan tahay magaalooyinka kale waxaan dareemayaa inaan aynu hal mid aynu isku nahay waxaan dareemayaa inaan magaaladii aan ku dhashay aan ka raagay xaq gaar ah igu lahayd xaqii ay igu lahayd ee gaarkaana waxa weeye maanta aanu imi insha Allah wixii ka dambeeyaan gudan doona gudashada waajibka xuquuqda ay igu leedahay dadka deegaanku ayaan u imi waxaanu nimi Buuhoodle runtii iyadoo na cabsi gelinayo oo la leeyahay ha tagina Buuhoodle halis baad kala kulmaysaan laakiin xaqiiqda jirta waxa weeye imaanshaha iyagu waxaan doonaynaa inuu ka tarjumo in arrinkaasi aan waxba ka jirin waxaan doonaynaa inaanu fariinta wanaagsan ay dadkuna nala arkaan qof kasta oo Buuhoodle ku haminaya ama ka fakaraya inuu yimaado waxa weeye hana arko inaanu nimi runtii waxa weeye ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu khayr weyn inuu kulmiyo insha Allah waxa weeye waxa jiri doona sida la idin sheegay kulama jiri doona kulamadaasina waxay ka dhacayaan gudaha magaalada waxa jiri doona insha Allah kulan ka dhici doona masaajidka masjid jaamaca insha Allah halkaas waan ku qoranahay waan idin kala hadli doonaa reer Buuhoodle gaar ahaan inta joogtay inta maqanba halkan ugu sheegaya waxa jiri doona jaamacadda bariga Afrika iyadana waan ka hadli doonaa waxa sheegaynaa aynu suumin idin xasuusinaya dhamaanteen dad islaam ayaynu nahay ilaahay aynu ku xidhnaana mar kastaba ogaana dhibaatadeena oo dhan xalkeedu waxa weeye waa islaamnimo ilaahay aynu noqono ayaan idin xasuusinayaa dhibaatada badan waxa laga raadiyaa meel kale dhibta jirta meel kale laga raadiyaa laakiin hadii laga raadiyo diinteena laga raadiyo waa laga helayaa marka waxaan idinku baaqayaa reer Buuhoodle dhibteena waxayna haysataa waxa weeye islaamku aynu soo noqono maadaama maanta idin la joogo intaan la joogan la hadlaya insha Allah biidnillaahi kariim mashaakilka ummadda islaamkuna ee haysta caalamkuna guud ahaan waxa weeye waa islaamka u xala biidnillaahi kariim waxaan ku faraxsanahay dumarkiina halkan ay joogan raggiina halkan ay joogan muqaalaad qurux badan ayaa meesha ka jira halkan aynu hoos taaganahayna waan sii macaansanayaa inaan hadalka sii badiyo laakiin aan inta aan ku soo gabagabeeyo waxaanu ku soo dhaweynaynaa walaalkeen samafale Cabdimaalig Sheekh Muuse Cali Coldoon waxaanu leenahay waa magaaladaadii waa deegaankaagii iyo degalkaagii ku soo dhawow waxaanu maanta gobolka aan ku soo dhaweynaynaa Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ah samafale bulshada Soomaaliyeed ay aad u taqaano waxaan leeyahay ku soo dhawow deegaankaagii waa goobtaad ku dhalatay haddaanu dhalinyarada gobolka aynahay waxaanu ku soo dhaweynaa si aad iyo aad u sareysa wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon baan halka ku soo dhaweynaynaa oo ilaa xalay aanu guulgal ugu ahayn
marka waxaan ku leenahay soo dhawow magaaladaada. bismillaahir rahmaanir rahiim. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad idilka iskale suukan keenayna oo nabad qabna. Maanta waa maalin weyn. Waxa soo dhaweynaynaa walaalkeen Cabdimaalig Muuse Coldoon qoraa waxaan ka wada saxafi iyo samafale waxa leenahay ku soo dhawow Buuhoodle gobolka Cayn. Ibraahim Abdiqaadir Jabaan warbaahinta Kalshaale Buuhoodle.